حقتادا halkay colaadu ka badalaan martankaanu galnaayo nagoo ka bayrin sawiride ka bixinaa. السلام عليكم كلنتي وعنا وناكسن داوديال كسو دبادة برامج كدوني ديدنان او علاوة اينو كفلقينو ارمها سياسة اي عالمكا ومالين اسنين تاريخ دون وحا يكو بيغانتا اللي حي توبانكا بيش سدحاد مارسو سنة لابدو كوني لباتنكا قضبض برامج كصاحب يال وحا كمين نقنايا دولة سوماليا ايا حقيجيسي ان كيسكي او هراي كورونا فيروس لغا هلاي دالكا غارهان مقالة مقدشو اي عاصمة سوماليا وزيرك عافيمادكا فوزية ابيكر ايا شاعة كقادي ان كيس كان لغا هلاي قوف كميدا دادكي كيمد دبدا lagu karantiilay garoonka Muqdisho ayadoo natiijada baaritaanka lagu sameeyay ay soo baxday isla markaana xaqiijisay inuu qabo fayraska wasiirka ma aysan shaacinin dalka uu ka yimid qofka asaasay yeeshay dadka lagu karantiilay Muqdisho oo 3 qof ah ayaa horay loo sheegay in ay ka yimaadeen dalka Shiinaha wasiirka ayaa shaaca ka qaaday in qofkan uu hadda wanaagsan yahay isla markaasna uu san wax halis ah ku heenin muwaadiniinta kale oo lagu hayo meel aysan dad kale u dhaweyn waa sida ay sheegtay sidoo kale wararka degdega aynu helayno waxa ay sheegayaan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa mamnuucday dhammaan duulimaadyada caalamiga ee Soomaaliya soo gaari jiray dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in laga bilaabo marka la gaaro dhamaadka maalinta 28 bisha Maarso 6 saacaabinimo la joojiyay dhammaan duulimaadyadii ka soo degi jiray iyo kuwii ka duuli jiray dalka Soomaaliya wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar ayaa sheegay in uu amarkan ka soo baxay kadib markii uu kulan degdeg ah isugu yeeray ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre wasiir Omar ayaa sheegay in amarkan lagu joojinayo duulimaadyada caalamiga oo ku dhaqan gali doono dhammaan dhulka Soomaaliya waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya fasix doonto kaliya duulimaadyada xagga bini'aadanimada iyo kuwa gargaarka go'aankan ayaa ku soo aadaya xilli maanta kiiskii ugu horeeyay ee cudurka coronavirus laga helay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya wasiirka ayaana sheegtay in maanta laga helay qof kamid ah dadkii lagu karantiilayay garoonka magaalada Muqdisho waxyaabaha ka soo baxo saaxiibayaal barnaamijyadeena kale ayaad ku maqli doontaan boqortooyada Saudi Arabia ayaa xabsiga dhigtay boqolaal shaqaale oo dawladeed ah oo ay ku jiraan saraakiil ka tirsan militariga iyo ciidamada ammaanka kuwaas oo lagu eedeeyay laaluush iyo inay si xun uga faa'iideysteen xafiisyada ay maamulayeen ee dawladda arintan ayaa waxa xilli dambe xaddi ku dhawaaqday guddiga qaran ee Sacuudiga u qaabilsan la dagaalanka musuqmaasuqa ee nasaha kuwaas oo sheegay in baariyaashu ay u gudbin doonaan dacwadaha ka dhanka ee dadka la xiriirinayo arintaasi NASA ayaa boggeeda Twitter-ka ku soo qortay in la xiray lana maxkamadeyn doono ilaa iyo 298 mas'uul oo lagu soo oogi doono dacwado ah dambiyo ay kamid yihiin laaluush iyo ku takrifal awoodeed waxaana la sheegay in ay si xun u maamuleen adduun dhan 101 milyan oo dollarka Mareykanka ah dadkan la eedeeyay waxa kamid ah 8 sarkaal oo ka tirsan wasaaradda difaaca kuwaas oo lagu tuhmayo in ay ku lug leeyihiin musuqmaasuq iyo sharci darro la isku weedaarsado oo quseeya qandaraasyada dawladda intii u dhaxaysay 2005 ilaa 2015 waxaana sidoo kale dadka la xiray kamid ah 29 sarkaal oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha oo ay ku jiraan 3 korneel iyo 2 generaal 2 garsoore ayaa sidoo kale la xiray in ay qaateen lacago laaluush kuwaas oo la xiriirinayo iyagana laaluush in ay qaateen 9 sarkaal ayaa iyaguna ku eedeysan musuqmaasuqa jaamacadda lagu magacaabo Almarefa ee magaalada Riyadh kadib markii ay qayb dhismaha jaamacadda oo burburtay falkaasi oo sababay dhimasho iyo dhaawac hay'addu ma bixin magacyada iyo tafaasiil dheeri ah oo la xiriirta kiisaskan iyo shakhsiyaadka loo xirayba haatana dhinaca dalka Turkiga saaxiibayaal hadii aynu aadno Turkiga ayaa heshay 12 kiis oo cusub oo cudurka coronavirus taasi oo ka dhigaysa tirada guud ee dadka laga helay 18 sida isniinta maanta ah uu sheegay wasiirka caafimaadka Fahrettin Koca tirada cusub ayaa ka dhigaysa kororkii ugu badnaa ee hal maalin laga diiwaangeliyo tan iyo toddobaadkii tagay markaasi oo lagu dhawaaqay kiisaskii ugu horeeyay ee la xiriira fayraskan Koca ayaa sheegay in 2 kamid ah kiisaska cusub ay la xiriiraan kiisaskii ugu horeeyay ee dalka laga diiwaangeliyay halka 7 ay u safreen Yurub 3 kalena ay Mareykan ka yimaadeen arbacadii tagtay Turkiga ayaa noqotay dalkii ugu dambeeyay ee ka mid noqda quwadaha dhaqaalaha adduunka ee laga helay fayraska kadib markii ay qaaday wax ururka caafimaadka adduunka ee WHO ku qeexay talaabooyin feejignaan ah leh oo ay ku dibdhigayso wixii markaa ka dambeeyay dawladda ayaa sare u qaaday talaabooyinka lagu hakinayo faafitaanka fayraska iyadoo la xirayo iskuulada iyo jaamacadaha la hakiyo duulimaadyada
dalal dhowr ah isla markaana dhacdooyinka ciyaaraha la qaban qaabiyay sidoo kale daawadayaal la'aan kumanaan Turkish ah oo ka soo laabtay umra ayaa u aadeen Saudi Arabia ayaa xaddi loo qaaday goobo lagu karantilo waxaana wasaaradda arrimaha gudaha ay sheegtay in baararka iyo goobaha lagu caweeyo la xiri doono laga bilaabo Isniinta maanta ah si loo yareeyo halista faafitaanka cudurka corona haatan saaxiibayaal waxaynu aadaynaa dhinaca iyo Mareykanka musharaxa madaxweynaha Mareykanka ee xisbiga dimuqraadiga John Biden ayaa balan qaaday in uu haweeney ka dhigan doono musharaxa madaxweyne ku xigeenka hadii uu ku guuleysto loolanka dimuqraadiga hadii la doorto madaxweyne golahayga wasiirada iyo maamulkayga waxa ay u ekaan doonaan wadanka waxaana balan qaadaya in xaqiiqadii aan haweeney u magacaabi doono madaxweyne ku xigeenka ayuu yiri Biden oo hore isaga xitaa u soo noqday madaxweyne ku xigeenka intii lagu guda jiray dood oo xalay la yeeshay ninka kulolomaya musharaxnimada xisbiga dimuqraadiga Ben Sanders waxa jira haween badan oo u qalma in bari ay noqdaan madaxweyne ku xigeenka ayuu yiri Biden musharaxa siyaasadda bidixda fog Bernie Sanders ayaa isna ku jawaabay in ay u badan tahay inuu sidoo kale sameyn doono aniga ma ahan oo kaliya inaan magacaabo haween waxaan xaqiijin doonaa inaan helno haweeney la jaanqaada isbedelada bulshada waxaana jiri kara haween badan oo sidaas ah ayuu yiri Sanders laba goor ayaa taariikhda Mareykanka haweeney loo doortay inay noqdaan musharaxa madaxweyne ku xigeenka musharaxa dimuqraadiga Walter Mondale ayaa doortay in haweeney ay madaxweyne ku xigeen u noqoto 1984 halka Sarah Palin oo ahayd haweeneydii uu sidoo kale u xushay John McCain oo ahaa jamhuuri 2008 hase yeeshee labadaba waa looga adkaaday doorashada xubnaha ayaa suurtagal tahay in Biden uu doorto senatorka lagu magacaabo ama senatorada lagu magacaabo Kamala Harris iyo sidoo kale senatorada sidoo kale lagu magacaabo Amy Klobuchar oo labadaba ka haray loolanka musharaxnimada dimuqraadiga ee sanadkan ama xitaa waxa dadka qaarkood ba ay saadaalinayaan Elizabeth Warren oo si kooban mar u hogaaminaysa tartanka dambeyn dhinaca iyo dalka waqooyiga Talyaaniga hadii aynu aadno dhaqaatiirta safka hore ugu jira dagaalka ka dhanka caabuqa corona ee dalka Talyaaniga ayaa sheegay in ay kala dooranayaan bukaanada ay noloshooda badbaadinayaan iyo kuwa aysan badbaadinaynin xilli ay sii badanayaan dadka uu ku dhacayo cudurka maalinba maalin boqolaal ayaana ku soo biiraya cudurkan Talyaaniga ayaa xaalad degdeg ah ku wajahaya sidii bukaanada looga heli lahaa sariiraha isbitaalada oo ku filan xaaladan ayaana lagu tilmaamay mid loo arko xilliyada ay socdaan dagaalada lagu hoobto oo kaliya hadii ay qof daadiisu u dhaxayso 80 ilaa 90 neeftu ku adag tahay uma baadna in aad u dhaqaaqdo sidii aad u daaween lahayd ayuu yiri Dr. Cristiano Salalori oo madax ka ah qaybta bukaanada halista ah ee loo gudbiyo isbitaalka magaalada Bergamo oo ka tirsan gobolka waqooyiga Talyaaniga ee dhaca Lombardia mar uu la hadlayay wargeyska lagu magacaabo Corriere della Sera erayadan ayaa naqanaya kuwo aad u xun laakiin waxa laga qoomameeyo ah in ay run yihiin ma filayno inay dhacaan wax aad ugu yeertaan mucjiso ayuu yiri laakiin arintan waxay qusaysaa caabuqa corona oo ku faafaya Talyaaniga taasoo micnaheedu tahay in go'aanada la xiriira nolosha iyo geerida ay la kala maarmaan yihiin gabayahan barnaamijka dunida iyo danan waa naginta baahida xogtaada halkay colaadu ka balalaan bartankaanu galnaayo